ninkan meesha taaganaad u jeediin isagoo sigaar iska cabayo ayaa hal mar sigaarkii ka dhamaana markii oo dhulka ku tuurana sigaar kale intuu cirka ka soo dhaco wuxuu dhex galaa koobkii oo kofayga ku cabaayay isaga oo yaaban ayaa waxa uu imaanaya nin shaqaale ah oo wadooyinka hagaajiyo kadib wuxuu ku dhahaa mudana iga raali noqo sigaarka adigoo meeshan ku ridi karo maxaa dhulka ugu tuuray isagana si isla weyne ku jirto ugu jawaaba wuxuuna ku dhahaa midaan shaqadaada waaye ma waxarta ina shaqadaada ku qabto midka shaqaalahana ma iska waalay wuxuu dhahaa wax walba oo aad sameeysid adiga dib kuugu soo laaban doonaan wuxuu taagan yahay sidaas tahay waa tijaabinayna kadib kofayga uu gacanta ku hayo dhulka ku daadina isaga oo aan u jeedino wuxuu ku dhacaa kuwa ciyaal fooda ah ayagana intay qabtaan ay biyahan ku shushubayaan weyna isaga tagayaan kii shaqaalaha ahana mar kale ugu soo celinaa wuxuu ku dhahaa wax walba aad sameeysid adiga dib kuugu soo laaban doonaan maalin kadib ninkan oo shaqadiisa ka imaaday oo raba gaarigiisa inuu galo ayuu wuxuu arkaa ATM haleesan oo lacagta daadaadinayo intuu dhinaca ATM ka soo aado wixii lacag ka soo daadatay dhan aruursanaa jeebabkoona ka buuxsanaa isla markiina wuxuu soo xasuusanaa hadalkii ninka shaqaalaha ahay oo ahay haddii aad wax samaysid adiga dib kuugu soo laaban doonaan wuxuu soo aadaa marka isbitaal magaalada dhexdeeda ku yaalo oo dadka si lacag la'aana loogu daaweeyo kadib gabadhii kalkaalisada ahayd oo isbitaalka joogto lacagtii u dhiibaa wuxuuna dhahaa waxaanoo lacaga qaata markii ay sababta weydiisana wuxuu u sheegaa inuu lacagtan u bixinayo si sadaqa ahaana magaciisuna uu yahay Connor Robinson gabadhan kalkaalisada ahna waxay ku dhehaysaa aad u mahadsan tahay sababtoo ah waxaa jira dad bukaan ah oo lacagtan u baahan inta aan kuu diyaarinayo waraaqadihii aad saxiixi lahaydna busudkan meeshan yaala waa sii cuni kartaa markii uu yimaado dhakhtarkii weynaay oo isbitaalka haystana waxay u sheegay inuu ninkan lacag badan u bixiyo si sadaqa ahaana dhakhtarkuna hadalkaas markii oo maqlo aad ugu mahadcelinaa ninkan wuxuuna ku dhahaa sadaqadaada waa ku mahadsan tahay Mr. Connor midkaana wuu waali yahay waraaqadihii markii uu saxiixo oo soo baxa wuxuuna sugaa inay ku dhacaan wax wanaagsan maadaama uu isagu wax wanaagsan sameeyay xogaa markii uu sugana wax wanaagsan ma ku dhacayaan wuxuuna ka shakinaa hadalkii ninka oo ahay haddii aad wax samaysid adiga dib kuugu soo laaban doonaa intuu si toos u soo kala wareego dhakhtarkii iyo kalkaalisadii u imaanaa wuxuuna dhahaa maskaxdeeda waa bedelay lacagteedii soo celiya